qaybta lixaad waxay noo maraysay markii ay degeen Maqamas markay halkaas degeen ayuu dhintay Abu Ruqaal jabadaas ayaana lagu aasay carabta socotada ah way shiidi jireen qabrigiisa markay agtiisa marayaan waxayna dhihi jireen waa ninkii xumaa ee Abraha Kacbada ku soo hogaamiyay Abraha wuxuu daray nin magaciisa la yiraahdo Aswad bin Maqsuud ninkaasi wuxuu gaaray Makka wuxuuna soo dhacay xoolo aad u fara badan oo ay reer Makka lahaayeen xoolahaas waxaa kamid ahaa 200 oo neef oo geela oo lahaa Abdul Muttalib suubanaha sallallahu alayhi wasallam awoogi oo xilligaas ahaa oday dhaqameedkii u talinayay Quraysh qabiilada Quraysh Hudayr iyo Kinaana ayaa damacday inay Abraha la dagaalamaan markuu geeloodii qaaday laakiin way ku dhici waayeen Abraha wuxuu daray nin kale oo la yiraahdo Xanaata wuxuuna Abraha ku yiri u tag madaxda reer Quraysh oo u sheeg inaanan u imaanin inaan dhiig daadino ee aan u nimid inaan dumino Kacbada kadibna Xanaata warkii ayuu u sheegay Abdul Muttalib iyo inuu Abraha dalbanayo la kulanka odayga Abdul Muttalib taasoo uu soo ajiibay oo u yimid Abraha Abdul Muttalib wuxuu ahaa nin haybad leh oo marka la arko xushmad ay ka muuqato Abraha sariirtu ku fadhiyay buu uga kacay isagoo qiimeynaya odayga weyn ee u yimid hadalkiina wuxuu uga bilaabay Abdul Muttalib oo maxaa rabtaa wuxuu ugu jawaabay Abdul Muttalib geel 200 oo neef ayaa laga soo dhacay ee waxaan rabaa in la ii soo celiyo geeleygii Abraha wuu yaabay wuxuuna yiri sida laygu ka buunbuuniyo iyo waxaad weydiisanaysaa isuma dhigmaan Kacbadiina ayaan weerarayaa adna tira geela baad igala hadlaysaa Abdul Muttalib 10 lama ilaawaan ah ayuu dhagihiisa maqashiyay wuxuuna yiri anigu waxaan leeyahay geela Kacbadana waxaa leh Rabbi oo ilaashanaya Abraha isagoo hadalkii ka gubanaya ayuu amray in 200 ee geela ah loo celiyo Abdul Muttalib wuxuuna bixiyay amar ah in duulaankii Kacbada la bilaabo Abdul Muttalib geeliisii ayuu ka haystay wuxuuna u sheegay qabiilkiisii ninkan waa ka dhab inuu duminayo Kacbada ee ka baxa magaalada oo buuraha Makka dushooda ah gala